سجال سنة دعوني كلفات لي كلفي أو جد بكلف إيه ده اسمه كشمي اسمه جل مسدود شرعي بقى إيه ده صح إيه ده واقع واحلل عقدة من لساني نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر ما أنت تاريخ ذو تهاي شن يتوانكي بشي لحاد لباتن يلح محكمة درجة قوادة عيدا ماذا قلب كسيدية الدنبية العلص وفردقية الأودن وحقو فريسان إيسا قرمغل كو إيدي سنة كي هاي برهان فارح آدن إنا حاوة بلين نور صدني استحسن جرأة إسلامار كان أودي بنا كي هاي مرحون أحمد جامع تكر إنا عاشي يوسف محمد تضباطن سنة جرأة برهان waxaa lagu eedeynayaa qodobka 434 440 iyo 40 164 iyo 61 soo dhaw haddaan ku bayaamiyo waxaa lagu eedeynayaa inaad dil bareer u geysatay marxuum Axmed Jaamac Takar maxaad kaga jawaabaysaa كلفات لي كلفي أو جد بكلف إيه ده اسمه كشمي اسمه جل مسدود شرعي بقى إيه ده صح إيه ده واقع لكن سيدا كلا كلفات اللي كلفي قرين بالله يا هاي سعيدي ورغض بيقولي سجال سنة دعوني شنو توانكي بشي اللحاد وحن محكمة دا إذا قلب كسيدا هور كيرني إذا سنة برهان فارح آذن إنا حاوة بلا النور صدني سدحجرة كاسو جيستي دل برير ونقف في قضب كأفر بقول صدني أفر وحنا دلك وجيستي مرحوم أحمد جامع تكر إن عاشي يوسف محمد تدبعت السنة جرأة من قد ما يقص ريال تاريخ مركي هاي صدق توانكي بشي سجل الله بكون شري لبعتن وحا مقالة ذكره وكذا عدل الكاس وجيستي هذه السنة محكمة دور تاجن إبراهيم وحو دلك وجيستي إن قضية تدبعت الجرأة بالمجيدة كنت أنا استاهلين إن برخلة لا هذا كاسو أحمد جامع تكر من قد يقص ريال مركي هذا بارست حق قرين سدا وهذا محكمة هرتي هذا كغرتي أيوه وقرتين ويسوق الدليل مرحوم أنا بروح نقصو إذا نوا أنت وقرتي هذا محكمة هر قرتي إنه الدليل مرحوم تدبعت الجرأة توري كل دليل أنا أقل من إلا دليل أضيعها محكمة شرفت لنا وما مدن قدامي مدن قرص ريال موكل كي يروحوا إيش إنه قلي kiiskaas hase ahaatee mudana gudoomiye mudana garsooryaal eedda xafiiska xeer ilaalinta eediisu waxay ku dhisan tahay 434 balse waxay ahayd in eedaas uu adeegsado 445 sida dhigay dil kama ah ama 441 mudana gudoomiye mudana garsooryaal waxaan muwakkilkaygu wuxuu ii sheegay in isku hayaan dhul cabirkiisu yahay 400 jarnaal Jamaal Takar wana wakiil uga ahaa marxuumka Allah u naxariiste kuna daala dacwadooda aadna u ergooda muddo badan meel walba oo ka filan karo in arintaas wax ka qaban kadhana uu galay mudana gudoomiye mudana garsooryaal waxaan qirsanahay in adag tahay naf bini aadan oo go'day hase ahaatee dilku sidiisa marba wuxuu noqon karaa dil kama ah sidoo qaba 441 habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed mudana gudoomiye mudana garsooryaal muwakkilkayga waxa iga muuqata in xaalada caafimaad dareemayo sida hadaladiisa dhaafka iyo waxyaalo badan ka muuqato mudana gudoomiye mudana garsooryaal sidoo ku cad qodobka 71 habka xeerka ciqaabta Soomaaliyeed qiraalka muwakkilkayga kaligiis laguma gaari karo gungaar ah falkaas inuu dil kas ah u geystay oo mutaysan yahay ciqaab ugu culus iyadoo aan la eegin duruufaha keeni kara maxkamadda sharafta waa mahadsan farx aadan wuxuu maxkamadda horteeda si bareer uga gartay inuu marxuumka isoo gacantiisa ku dilay waan gudoomiye garsoorayaal sharciyada islaamka meel adag bay ka istaagtay dilka qofka muslimka ah tusaale ahaan cuquubada ayadii waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajzaahu jahannama khalidan fiha ayadaasu inta ciqaabad shan ciqaabad istaba dhigtay oo la kulmayo qofka gacan ku dhiglaha sidoo kale sida ay u weyn tahay in qof islaam ah naftiisa si yar loo gooyo آيات كل القرآن كهو من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا قفت له أو ظلم كد له وحلم له مدة كل له سيادة رادة من قد نقر سوريال
ninka walaalkeena dembigaas u galay wuxuuna maxkamadda horteeda ka qartay inuu marxuumka isagu dilay sidaa daraaddeed mudana gudoomiye garsoorayaal eedaysanaha burhaan ee maxkamadda hor taagan wuxuu u gafay shuruucdii la dhigtay iyo kuwii rabbi soo dejiyey labadiiba sidaa daraaddeed mar hadduuba maxkamadda horteeda ka qirtay awalna uu saasoo kale u qirtay waxaan maxkamadda sharafta la weydiisanayna in lagu xukumo dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum axmed jaamac takar oo ahaa oday 70 jira uu gacantiisa ku dilay maxkamadda sharafta la maasantay mudana gudoomiye mudana garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa in muwakkilkayga laga laalo eedda xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeeyay laguna bedelo 441 dil kama ah mudana gudoomiye mudana garsoorayaal waxa maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa maadaama aysan jirin khilaaf ka baxsan muranka dhulka ka hor muwakkilkaygana lagu wareejiyo labada daraf la siiyo waqti ku habboon ay ka soo munaaqashoon karaan labada daraf mudana gudoomiye mudana garsoorayaal maadaama muwakkilkayga una baxsan isla markaana oo dhacdada ka dhaltay khilaaf gaar ah mana jirin sabab ku filan oo lagu gaari karo ciqaabta ugu dambaysa ee dilka sidaa darteed waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa muwakkilkayga in maxkamadda xeerarka dalka u yaal sida shareecada islaamka ku dayso qisaastan kuna xukunto magta marxuumka maadaama yahay nin oday ah oo amoodid xoogaa inuu xagga maskaxiyan u xanuunsan yahay lagana warsugo ehelada